أنشود وينه والمسؤول قاريا اللي أنت عايز صدافة واو أوش أوش كافة حمايو واو ما شاء الله shantooda waxaan ku faraxsanahay inaan gacan qaaday oo gacanta aan geliyay oo aan ku xiray gabdhihii ay aroos lahaayeen waxa aroosan kaga duwan yahay marka adduunka aynu joogno ilaahay ayaa dadka u qaybiya nolosha qof walbana siduu ilaahay uu ka dhigo ayuu raali ku yahay mu'min ayaa nahay sawirada sida ka muuqato waa 10 qof caawa aqalgalku dadku u dhaxmarayo waa 10 qof 10kaas 5 ka mid ah way leeyihiin 5na inta ay leeyihiin marka fiirsan marka 10kaas qof waa 5 iyo 5 qoys walba wuxuu ka kooban yahay labada qof ee lamaanaha ah mid ayaa indhala midka kalena indha ayuu leeyahay si ay gacanta isu qabtaan oo isu xanaaneeyaan oo ay yani noloshooda ay garab isu siiyaan guurku waa noocaas ayuu ku socdaa waa dhalinyaro waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay ubad khayr qaba ilaahay uu siin doono ubadkaas waxaan rajaynayaa marka dambe inay noqdaan kuwo u shaqeeya waalidkood gacanta qabta masaajidka geeya meeshii kale oo khayr u kaxeeya haddaba xanaano way haystaan oo waxaa u jooga dadkii la dhashay iyo walaalahood laakiin haddana qof aad adigu dhashay iyo qof kula dhashay qof aad dhashay baa sii muhiimsan marka ay dadkii hogaamin lahaa ay sameeyaan in aan u diyaarino marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa markay noo soo galaan inay dareemaan dad walaalo ah oo garab taagan oo dhalinyaro ah oo ku faraxsan guurkooda inaan heli doono marka aad lagu yaanu soo dhaweynaya madaxshaas ayuu soo maray dhalinyaradaas ayaa barnaamijkaas soo waday shirkadahan ayaa maalgeliyay anagu doorkeenu wuxuu ahaa dadkaasi wax loo qabanaayo iyo dadka ilaahay xoolaha uu siiyay inaan isku xirno kana soo saarno qoysaskaas maanta aan dabaaldegayna ee farxaaya markii hore hadii uu ahaa sheeko ma dhici kartaa islaahay maanta waxaan goobjoog u nahay dhammaanteen guurkii oo saldhigtay nikaaxii oo dhacay galabta intaan oo qof ah ay sugayaan gelbintii iyo dabaaldegii reerahaas cusub ee aan dhisnay inaan u wada ducayno u hambalyeeyno darsina ka qaadano oo ah Soomaali haddii ay isku tashato oo ay qorshe wanaagsan la imaato wixii ummaddu ay leedahay ee qorshaysato waa lagu guulaysaa guurkan ayaana tusaale u ah marka shantaani waa shantii ugu horeysay oo barnaamijkaas loo sameeyey waxaa iman doona insha Allah tacaala kuwa kale oo ayagana khadku soo jira oo arrimahaas ayagana wax ka qaban doona insha Allah tacaala warbaahinta sidoo kale ayaa ugu mahadsan yihiin waa u jeedaan galabta waxaa u malaysaan waxa kaamara meesha yaalla in la soo dhaweynaayo madaxdii qaranka iyo wasiiro iyo sidaas daay maanta shirka jaraa'id ee waxaan warbaahin isugu imaatay waa dabaaldeg loo dabaaldegaayo aroos aan horay loo arag arrin inuu cusub marka dadka inay shucuurkooda yani ay muujiyaan oo farxaan xaq ay leeyihiin aad iyo aad u mahadsantiin soo dhaw sheekada halkaas ka sii wad waxaan ku simaayay inta arooskii ka soo dhawaanayaan aroosyaasha ayaan ku sii simaayay warbixin kooban oo aan ka siinaayay meesha uu barnaamijku soo maray iyo maanta inuu yahay wax gacanta lagu hayo oo qofkii shalay u maleynay wax khiyaana ama se waxaan suurtagal ahayn asagoo suurtagalay ayaad kulligeed markhaati ka tihiin kuwa soo socdana intaas in ka badan ayagoo ah maanta waxay odayaashu sii ballan qaadayo sii sheegeen maanta 5 qof ayaan u dabaaldegayna 5 qoys ayaan dhisnay marka soo socota 500 inay 5tan qali doonto ayaan rajaynaynaa ilaahayna gaarsiiyo waa mahadsantiin mabruuq alf mabruuq ayaan leenahay lamaanayaasha isxalmaday ilaahay ka dhigo gurigooda gurina ya Allah ka dhigo guurkoodana guur khayr Allah ka dhigo waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sheekhayaga Sheekh Cabdulxayi aadan xasan shirkadda Hubaal oo ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya suuqa sarifka lacagaha qalaad kuwooda ugu aaminka badan ayaa waxay si hagar la'aan uga qayb qaadatay aroos wadareedka ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo bixinaysay qarashka ku baxayay 4 lamaane oo ka mid ah 10 lamaane oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ahaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama lixaadkooda uusan dhamayska tirayn madaxa xiriirka bulshada ee shirkadda Hubaal Sugaal Cali ayaan la ka hadlayay xafladan arooska ee ay maalgelinayeen ayaa waxa uu sheegay in markasta shirkadda Hubaal ay u taagan tahay garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee u baahan in la garab qabto galabtoo kale maantoo kale
farxadeed waxay inoogu duwan tahay maalmihii kale xafladihii kale munaasabooyinkii kale aan ka qaybgeli jirnay waxaan waqti badan gelinay inaan maanta oo kale ka soo muuqano halkan munaasabadan markaan soo ajiibaynay dhismaha qoysaskan markaan ka qayb qaadanaynay run ahaantii nagama ahayn inaan magac ka sameyno customer ka sameyno balse waxay noo ahayd inaan ka mid noqoto waxyaabihii aan ugu talagalnay foundationka iyo markaa bulshadii wixii laga qaaday intii baan ugu celinay waxaan kaga mahad celinaynaa Guryasamo madaxdoodii inay si xushmad leh inoogu qadariyeen inoogu yimaadeen barnaamijkan inoo soo bandhigeen xafiiskeygana aan ku soo dhaweeyey si qurux badan oo aan hagarasho lahayn oo niyad sanna aan ugu soo dhaweeyey anigoo u ballan qaaday in barnaamijkan aan qayb weyn ka geysan doono shirkadda Hubaal waan jeclaa maanta guddoomiyaha inuu halkan ka soo muuqdo ha yeeshee guddoomiyuhu waa inaga maqan yahay ha yeeshee waxaa ii soo dhiibay inuu jeclaan lahaa inuu halkan ka soo muuqdo xafladaha dambe insha Allah uu soo muuqan doono anigana markaa oo soo diray waxaan rajeynayaa markaa inaan saas ugu qayb qaadano guddoomiyaha ugu doono talabaad waxaan jecelahay inaan halkan ka dhawaajiyo anaga farxad bay inoo tahay Hubaal ahaan kaliya ma ahan inaan bulshada ka shaqeysano bulshada in loo shaqeeyo loo baahan yahay bulshada wixii laga qaaday dib loogu celiyo loo baahan yahay waa sidaa darteed waxa aan bulshada qayb weyn kaga nahay waxqabadkoodii iyo in qaybtoodii liidata aan garab istaagno kuwoodii garab istaag u baahan aan caawino ma aha markii ugu horeysay aan kaga qayb qaadana barnaamijyo noocan oo kale ah markhaati baad ka tihiin waana sababta Hubaal Traders Company ee bulshada u aamintay isla markaana customerkeedii ay hiil ugu yihiin waxaan ballan qaadaynaa barnaamijyada noocan oo kale ah in shirkadu mar walba shuruud la'aan ay garab taagan tahay in shirkadu mar walba ay hiil iyo hoola taagan tahay tala iyo tusaale ay taagan tahay u dheeraan ka noqdo shirkadda Hubaal Guryasamo saaxiib dhow bay la noqotay wayna la sii ahaan doontaa u dheeraan ka noqdo goobjoog baan ka nahay si gaar ah aniga arrimaha bulshada wax badan baan ku soo jiray ilaa haddana waa ku jiraa wax badan baan ka warhayaa geedi oo ah markaa howjoogaha iyo walaashay Ilin iyo Farxilaan Filaan iyo Sheekh Cabdilxay iyo tiim badan oo Guryasamo aan ku baranay waxaan markhaati ka ahay inay bulshada ugu faa'iideysanin waxna aysan ugu bedelanin sidaa darteed shirkadaha haddaynu nahay waxaan u aragnaa inay tahay qayb ka mid ah wax lagu daydo waana garab istaagana u dheeraan ka noqdo shirkadda Hubaal waxay u aragtaa barnaamijkan inuu yahay barnaamijyada ugu waaweyn ugu quruxda badan isla markaana ugu taariikhda weyn oo aan la soo shirtagi doono ka qaybgalka barnaamijkan u ilaahay ka noqdo dhanka kale su'aal ayaa macaamiisha Hubaal waxa uu sheegay in lacagii ay maalgashadeen sidoodii ay ugu shaqeynayaan sabtida soo socotana ay siin doonaan dadka faa'iidadooda social media waxaan xalay isaga ku arkaynay shirkado badan oo markaa lahaa waa koosteen shirkadu Hubaal la qayb ka helay waa ay koosteen waxaan idin ballan qaadaynaa haddana hortiina ka sheegayaa in shirkadu Hubaal ay shaqeynayso maalinka sabtiga ugu soo horeynaya faa'iidada iyo profitka ay customer ku leeyihiin ay bixinayso maanta oo aniga shirkada joogay macaamiishii noo timid aan ka qancinay customer ku xaq bay u leeyihiin waxa ay maqlaan in shirkada u soo cararaan ay yiraahdaan maxaa ka jira xalay tadoo sacbeen markaan beeshka ku soo qorayay shar lacagtiini iyo amaanadiina waa idin haynaa sida loo aaminsantiin ayaa idin aaminsanahay shaqadu waa ay socdaan Allahu shirkadu kalsoonida dadka ay ku dhisan tahay xaqiiqatan customerkeedu toban kun ku sii dhow yahay shirkada Hubaal dadkan wax ku nahay kagama faa'iideysanayna baahida adinka inta nala jirtaan insha Allah waan joogi doonaa waan shaqeyn doonaa man hubo iyo wax Ilaahay hortiisa loo tagi doono insha Allah aad u mahadsantihiin anigoo markaa soo koobaya hilmaam hadal kuma jiro waxaan mar kale u mahad celinayaa barnaamijkan quruxda badan dadkii iyo maskaxdii iyo fikirkii ka soo shaqeeyay oo ahaantii Ilaahay hortiisa ula tagi doonaan qoysas islaam inay taageen waan u mahad celinayaa wax la garab istaago waxa uu quruxda badan waa qof walaalka ah qoyskiisa iyo garab istaagiisa waa ka Allah subhanahu wa ta'ala xadiis ku leeyahay والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مركل إن شاء الله إن فضيلة إنه حفلها إن يصور مقنع وأنكم رح صنعوا وأنكم صنعوا إن شاء الله هذا في أدنى